بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة قلمدك ومرتدى آنونا هاي دمان مدحوينياشا كالي بارلمانكا iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug labada gole labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokolka oo halkan ku fadhiyo runtii waxaan jeclaan lahaa inaan si niyada oo kalsamiya u bogaadiyo madaxda iyo shacabka galmudug oo ugu horeeyo madaxweyne qoorqoor ilaa iyo caawa waa laga sheekayn karaa wanaagga ee aan halkan ku aragnay laakiin waxa tusaale ay noogu filan tahay oo darsi noogu filan tahay midnimada iyo wanaagga iyo isla shaqaynta iyo isla buuxintu waxay dhali karaan wadan in horumar la gaarsiiyo waxaa ka horeeya hal shay waxaa ka horeeya horta wadanka in loo laxa jecloodo waxaa muuqata oo aan marqaati ka nahay reer galmudug inay u laxa jecloodeen wadankooda oo ay caqli iyo cilmi iyo effort waxay hayeen ay halkaan isugu keeneen hogaaminta madaxweyne qoorqoor iyo personalitiskiisa iyanu intaasoo dada iyo intaasoo horumar isku hayeen bogaadin gaar ah ayaan madaxweyne kaaga bogaadinayaa waxa kale oo rabaa inaan soo dhaweeyo saaxiibkay madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Madoobe oo runtii sidii doorashadiisa ay u dhacday aanan golayaashan maba dhicin laakiin aan ka soo qayb galin asagana waxaan ku leenahay ka soo qayb gal wanaagsan taladaada iyo odaynimadaada waa u baahannahay adigana soo dhawow run ahaantii war badan ma la ii reebin runtii waxaan rabaa inaan 3 qodob kaliya aan dul istaago shirka ujeedadiisa iyo waxa laga filanaayo iyo meesha aan u soconno iyo waxa aan rajaynayno dhammaan waxaa cabiray madaxweynayaashii iga horeeyay qodobka ugu horeeya oo aan rabo inaan dul istaago waa qodobka dastuurka dhammaanteen waxa halkaan aan isugu nimid oo isugu keenay waa dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii wadankaanu galay kala aanbixi kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan la geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dokumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan waxay la mid tahay ayadoo family isla dhashay kulligood intay waalidkooda ay u yimaadaan ay yiraahdaan aabow hooyow walaalkay iga weyn iyo walaalkay iga weyn shaki baan ka qabaa intaad nooshahay wax noo kala qor waxaas aan ku dhaqanno markaad dhimato dastuurku muhiimadaas uu leeyahay waxa ayaamankan batay in dastuurka la duro waxa lagu leeyahay waa qabyo dastuurku qabyo maaha waa turjumaad qaldan kelmadda ingiriiska draft waxa waaye ilaa laga ansaxiyo umbuu draft yahay ma ahe Soomaali waxay isdhihi lahayd waystri Djibouti laga soo bilaabay sida madaxweynayaashu u sheegeen ilaa hadda muxuu ahaa senator Cabdi Qaydiid iyo tiimkooda waxay Soomaali isdhihi lahayd ayaa halkaas la dhuudhuujinaya wax aqliya oo naga maqan oo banaanka naga jira huma jiraan waxa la yiraahdaa wuu iska hor imaana
dastuurku ma iska hor imaanayo waxay ku xiran tahay in il naxariis leh lagu fiiriyo in niyad waxay u baahan tahay in niyad wanaag lagu fasiro waxay u baahan tahay in il hooyo lagu fiiriyo oo aanan il eedo lagu fiirin dastuurka haddii il hooyo lagu fiiriyo dastuurka wax ka hadlaysano ma jiraan wixii ka dhimanna hadda hawsheedu socotahay aan iimaansanno gaar ahaan waxyaalaha dastuurka aan ka dhaxlayno waxaa ka mid ah sida loo sheegay systemkan federaalka oo aan haysanno mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsanahay waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa sida dad badan oo yaqaan ay og yihiin aniga samafalkan ka soo shaqayn jiray dad baan wax u qeybi jirnay dadka marka safka la geliyo haddii safkaas loo hoggaansamo oo qof walba waqtigiisa sugto oo qorraxda iyo dhibaatada iyo qolada safaysa iyo ay u dulqaataan hawshu fudeed ay ku soconaysaa laakiin haddii safka mid gooyo oo wuxuuna xaq u lahayn ka doono oo mid kale halkan ka galo oo mid kale halkan ka galo waxa dhan waa isku dhaxyaacaya waddankan in xasilooni siyaasadeed laga helaha waxay ku xiran tahay inaan dastuurka u hoggaansano haddaan dastuurka u hoggaansano qorrax iyo dabayl iyo wax walba aan iskaga dulqaadanno waa waddan dagaal ka soo kabanayo laakiin waxaan hubaal ku qabaa oon ku kalsoonahay inaanaan isnaciin wixii aan ku wada hadli lahayn meel ayay noo yaallaan arrinka labaad doorashooyinka madaxweynayaashu waa ka hadleen adduunyadan sideedaba laba doorashaa ka jirto waddan isku toosan oo wanaagsan oo taariikhdiisa la og yahay oo dadka musharaxiinta ah tabeelayaashooda iyo durbaanadooda ay soo qaadanayaan oo cid u baahan ay jirin oo dawladda kaliya la leeyahay xoogaa dawladnimada inaadan mataqaanaa aadan dadka tartamayaasha ku xusul gelin kaliya ee laga fiiriyo intaas doorasho noocaas waa jirtaa doorashada kale oo wadamada burburay iyo wadamada dhibaatooyinku ay ka jiraan ka dhaca hal shay saldhigu ah waxa saldhigu ah in lagu heshiiyo labaatankii sano la soo dhaafay wadamada nooceena oo ay doorashooyinku ka dhaceen oo ay ka mid tahay Afghanistan oo ay ka mid tahay Liberia oo ay ka mid tahay Sierra Leone oo ay ka mid tahay Congo oo ay ka mid tahay East Timor waxay doorashadoodu ku dhacday heshiiskaas oo ah inay 4 kooxood ka heshiiso marka leeyahay macnaheedu maaha in hal qol la isugu keeno laakiin inay talada heshiis ka yihiin koow cidda taladu gacanta ugu jirto sababtoo ah waxay hayaan dhaqaalihii imkaaniyaadkii awoodii amnigii waa loo baahan yahay ha ahaadaan heer gobol ama ha ahaadaan heer ka koreeya dadka xukunka hawada uga jirto oo raba inay kuraastaas ayaguna markooda soo fuulaan waxba kama duwana marka rifriigu labada kooxood kabtanadooda intuu isu keeno instructionska kala siiyo hadduu gooni qolo ula hadlo qolo kalena gooni ula hadlo dadkii shicibkii fiirsanayay way waswaasayaan waa in dadka xukunka raba iyo dadka xukunka haysta ay tafaahum leeyihiin waxa kaloo laga maarmaana shicibkuna inuu raali ka yahay oo wakaaladooda ha ahaadaan odayaasha dhaqanka ha ahaadaan culimada ha ahaadaan haweenka ha ahaadaan muxuu ahay mutaqafiinta iyo dadka mufakiriinta oo fikira waa inay waxa socda ayaguna raali ka yihiin
ugu dambeyn beesha caalamku waa inay legitimacy inay la dul joogto waaye maxaa waaye sababtu annagu Soomaaliya haddaan nahay waxaan xubin ka nahay ururo caalamiya United Nations ka kamida ururka carabta kamida kan islaamka kamida igada kamida dhammaan ururadaas waxay leeyihiin qodobo haddaan ku xadgudubno qabanaya sidaas daraadeed ma rabno inaan sameeyno doorasho ururadaas iyo beesha caalamku u arkayaan inaan fallaaganahay oo aan taladeena gooni aan u dhiganay doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa muhiim sababtoo ah waa safety valve waa meeshii systemka laga neefinayay dhammaan madaxweynayaashu waa ka hadleen muhiimadda ay leedahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto lagana heshiiyo wixii intaas ka soo hara waa farsamo marmarka qaarkoodna waxaan isku haysanaa wax in la isku haystaba aysan ahayn tusaale ahaan waxaa buuq badan oo ka jira hadda guddiga doorashooyinku waa xubin farsamo oo loo sameeyay inay farsamada doorashooyinka ay hayaan haddaad fuundi guri u dirsato oo aad tiraa gurigan ii dhis oo uu ku yiraahdo muxuu ahay waxaan ku dhisayaa 2 usbuuc $10,000 ana kugu baxaysa اختيارك إن أقبشه إن الديد أدا إسكاله فوندي وحق كوجو ماله إنه كالا مرمى عريشان كود بسات نجحان كود بسات شقدة أسوق ماله قد جالس هوشي سواق بصدي يا الله نبين حليم يري نبكي هلا قد دايو ثلاثة أنا قاعد تشنين مالكي تلا نجس صوب بحذو حدنا أيضا كعلينا أما كيف بدلنا كعلينا سيدا إذا ورت مال عدلا إن لا إسكا قبصده أو لا إسكا حكتو أما لا إسكا شكيه وقدره قلبك قدام بيو عن ربعين أنك هذلو وقبل كبنادر قبل كبنادر وعاصمة دي وطنك ومقالة أن وضلان هاي ودولة نمديني وسلدقيني وهلك قروح دينا يقاب درهدينا لبضوا أي كم مقدان إن مر والبا تلديدا آخر الساعة لقا وضا هذا وهرتوا نصيب دهرو دادك حمرنا أرنتاس وسواس بدن بيقلينيسا نين آن صاحبنا هدكور وحويرينيه ونين آن شركتهين هدو حسابتك الليح ليحدو ورعاو حسابتي محا سو حروده ورا برين نوغا ديك هدو حسابتك الليح ليحدو نينكاس قابلاو واي كلا بخا إن متلاد حمر إيو مقامك حمر ساعد ugu dambeysay sidii excuse loogu sameeyay birha laga hadli saadan baa laga hadli kana laga hadli last minute kale iskugu yimaado waa nasiib daro magaalada xamar waa magaalada canshuurta ugu badan laga qaado dawladda federaalka iyo gobolka banaadir iyo shabaab marka la isku daro waxa la qiyaasaa magaalada xamar in laga qaado $1 bilyan sanadkii waxa u dheer amni daro iyo muxuu ahay rafaad kale oo dawladnimada iyo caasimadnimada nafteeda ku soo gaaray matalaadu waa xuquuq qofka muwaadinka uu leeyahay meesha uu doonaba ha joogo Soomaali dhamaanteen waxa noo yaal inaan ka wada tashano maqaamka magaaladan sida aan ka yeelayno inaan ka wada tashano ummad meel degan oo badan oo wax tabata taariikhda waa soo aragnay horaan u soo aragnay gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi markii la isku daraayay si niyad wanaaga ayay reer waqooyi intay dawladnimadii soo qaadeen ay noo keeneen waxa dhanba in ayaga lagu wareejiyay ahayd waxba laga matixgelin maxamed ibraahim cigaal oo raganimadiisa kula jooga alla jooga bas dawladdii markay soo burburtay salaamu calaykum ayadoo la dhihin haddana waa laga tashtay dawladda la dhisay waa ka warqabtiin
wax alla wixii shir la qabanayay oo dib u heshiisiin la lahaa hal shiroo dartood u baaqday ma jiro horaa looga socday nimankaas inay goostaan oo goosashadooda ay ku adkaystaan ma garay u leeyihiin mise gar uma leh gobolka banaadir waa caasimadii waddanka ma goosanayso laakiin waxa ka suurtagal ah idin sheegi waxa ka suurtagal inay dhahaan Soomaaliyay cashuur noqotaya iyo amri darro noqotaya iyo culays noqotaya 60 sanaan caasimadnimada soo haynay culayska hana laga qaado meel kale hal geeyo waxa ka suurtagal inay dawladnimada ka cagajiidaan oo canshuurta iyo mataqaanaa tacaamulka dawladda ka cagajiidaan oo shacbi madluumiin oo dhibaataysan dawladu kor fuushay inuu noqdaa iya ka suurtagal waxa ka suurtagal in mataqaanaa weelku buuxsamo biyaha daadiyo arinta banaadir waa ka xumahay in mar walba aakhiru saaca walada ciyaarta maxay dhan injury time in mar walba injury time ka la iska warsado arintaas waxa laga bedelo caasimadaas waa wada leenahay aan wanaajisano si aan raalli aan isaga nahanay maqaam aan ugu raadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh